ololaha doorashooyinka dalka Djibouti ayaa maanta galay maalintii saddexaad waxaana xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Djibouti UMP oo maanta isu soo bax ballaaran ka dhigay xaafadda Balbala ee magaalada Djibouti. boqolaal ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadda Balbala ee magaalada Djibouti oo ruuxaya calanka muuqa dheer ee xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada dooga u eeg iyo sidoo kale sawirro ay ku xardhan yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ahna murashaxa xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP Ismaaciil Cumar Geele iyo marwada koobaad ee dalkani Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayd ayay ruuxayeen dadweynahaasi kuwaasoo wajiyadooda laga dheehanayo dareeno farxadi ku dheehan yihiin fagaaraha guriga ummadda ee dalkani Djibouti ayay isugu soo baxeen dadweynahani oo muujinaya taageero hiil iyo hooba leh oo ay muujinayaan xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP iyo murashaxa xisbigaasi mudane Ismaaciil Cumar Geele ahna madaxweynaha dalkani Djibouti. sidoo kale waxaa munaasabada ololaha maalinta saddexaad ee dalkani Djibouti goob joogayaal ahaa bahda suugaanta oo iyagana goobta wacdara la yaab leh ka dhigay isla markaasna soo bandhigay heeso wadaniyada iyo kuwa ay ku taageerayaan murashaxa xisbiga UMP. fanaaniinta Sharma Boy iyo sidoo kale Maslax Mideeya ayaa iyagana goobta waxay ku soo bandhigeen heeso soo jiitay qulubta dadweynaha isugu soo baxay ololaha taageerada xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee dalkani Djibouti. intaasi kadib waxaa munaasabada iba furay oo hadalka isaga dambeeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP taageerayaal iyo sidoo kale bahda abwaanada dalka Djibouti oo iyaguna halkaas ku soo bandhigay gabayo iyo maansooyin taageera. mudane madaxweyne halkii ka imiday aniga ku ballan qaadaya marag baan kaaga ahaa waxa intii u dambeysay dhalinyarada anaga ka joogna dalkayaga waan jecelnahay dadkayaga waan jecelnahay adigana wax kale kuma doorano waxa ku soo raacnay ku soo daba joogsanay markaan eegna mandaqada maanta dalalka agagaarkeena dhibaatooyinku ku sugan yahay markaan aragnay xaaladaha wadanada jaarkeena ka jira iyo siyaasadda dheer markaan aragnay taasaa sababtay inaan ku soo daba joogsano adigana waxaan leeyahay akani ila kunaaca waa taageersanahay madaxweynaha kolley waxaanu balana waxay indhu arkayaan beelku gooyaan bay tiraa Soomaalidu malaayiinta ummadda reer Djibouti ee isku timid gaar ahaan reer Balbala waxay ka marakacayaan inay taageero u muujinayaan mudane madaxweyne mar haddaad u diyaar u tahay inaad dhalinyarada hogaamiso mar haddaan ku weydiisanay inaad noo soo laamato maanta waxaan ku leenahay hiil iyo hoob baan kula garab joognaa agtaadana waa nahay sidaad uga dalbateen musharaxeenu inuu soo noqdo وأصلاً نجايلي إنه كنا وينك سوسو موجية لكن سواء هني هذا بيش السجال كيجا إن أتصيد أسادو ولا بوحسين سحارة ده هنا أبي بوحسين واجوتين وابوحسين وابلغاد وما تنتهين وحن إليه عدكاغو ما تقيمه فرديا لكن واحد كوب بدلنا نساب برنامجه وصوت دياري أو قيمة وين يكونوا فرديا oo ka soo ururiyay rabitaankii bulshada tuureeyay uu sameeyay ka hore ee magaalada iyo gobolada oo dhan ku soo wada maray ayuu ka soo wada ururiyay rabitaanka ummadda reer Djibouti marka barnaamijkaabaad iyaad ku bedelinaysaa codkaada waa inoo bisha 9-kayga haddii aan la yiraahdo muwaadin dalkaaga u heli hu codee Ismaaciil Cumar Geele magaca qarangaarayo umura qalbiga ku yaal qaranka waa loo dhinto qalbiga looga jabay rag basahankayga leh subaxna weli lehelin rag baxumintii kastaba meel kastaba ka maqan dayalkii moodayo waan ku dhaaranaa
ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmeeray murashaxa xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee dalkani Jabuuti ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa uu naga mahadnaqay dadweynaha xaafadda balbala ee dalkani Jabuuti isoo baxan ballaaran ee ay ku muujinayaan taageerada hiilka iyo hoogale ee ay u hayaan xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada balbala degmo ma aha degmo way dhaaftay waa magaaladuna waa kolka ay kaabayaashu ku dhan yihiin kolka aad xaafad kale ama magaalo kale ama dal kale aanad wax uga doonanin xaggaaga ka hesho iskuul ka hesho dhakhtar ka hesho waddo ka hesho kooraan ka hesho waxaasoo dhani kolka ay ku dhan yihiin ayaa la bilaabi karaa in la yidhaahdo waa magaalo waxa aan soo gaadhsiinay haddii aan la yidhaahdo maca taageeradiinna garab jooggiinna daljacaylkiinna iyo rabitaankiinna markaan isku daro waxa aan gaadhnay inaan salaha aan dhisno waxa aan gaadhnay magaalada balbala xaafad bay ahayd tuulo yar bay ahayd dhowr aqaloo quraha taa jiray waataa intaa leekaatay waataa magaalo buuxda noqotay waataa waddooyinkeedii kooraankeedii biyaheedii wixii carruurtoodu u baahnaayeen oo dhammaanteed laga heli karo ninkii indhaha iska qabanaya isaga ay jirtaa waxa aan damacsannahay inaan weliba tayada sii kordhinno waxa aan ku talagalnay inaan halkan waxay ka dhisan 3 ama 4 aan gaadhsiino inta hadhay waxa aan damacsannahay in nin kastiba wiil iyo gabadh inay wixii saami ay ku leeyihiin waddanka dalkooga inay ka helaan ayagoonan cidna baryin qolana doondoonin waddaninimada ka weyn qabiilka waddaninimada ayaa ka weyn daljacaylka ayaa ka weyn ilaahay isku xidhkiisa ayaa ka weyn olaha doorashooyinka dalka Jabuuti oo si habsami uga socda guud ahaanba dalka Jabuuti ayaa si weyn looga dareemayaa sidoo kale deegaanada aan wali la tagin diyaar garow xoogan oo loogu jiro sidii deegaanadu ay ugu tartami lahaayeen isu soo baxyo ballaaran oo ay ku muujinayaan taageerada u hayaan murashaxa xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada mudane Ismaaciil Cumar Geele Najiib Abdiwali Cabdi Xiis telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 Jabuuti